واي بسم الله sanadkii 2019 madasha waxbarasho ee loo yaqaan Coursera ayaa waxay soo bandhigeen course cusub oo ay ugu magac dareen Learn How to Learn. Course-kaas waxa loogu talagalay maadaama oo ardaydu sanadka ay ku jireen coronavirus dadkuna ay xaafadaha ku xidhnaayeen waxa laga fikiray sideebo qofku isagoo oo aanan macallin haysan keligii wax isku bari kara ama isagoo aanan tagin waxbarashada rasmiga ah. inta wixii ka dambeeyay course-kaasi waxa uu noqday sanadka 2019 course-kii ugu badnaa ee ardayda Coursera wax ka barata ay xiiseeyaan waxaana wax ka bartay wax ku dhow 4 milyan oo arday. inta wixii ka dambeeyay waxa ay adduunyadu u qalab qaadatay in la xoojiyo inuu qofku keligii wax isbari karo ama waxa loo yaqaan self learning sida awgeed shirkadaha waaweyn sida imika Apple iyo Microsoft iyo Google oo kale way ka saareen shuruudaha qofka u shaqo tagaya lagu qaadanayo inuu wato shahaado jaamacadeed kaliya waxa loo shardiyaa inuu qofku xirfadii iyo aqoontii leeyahay marka qofkan hadii una jaamacad waxaan uga soo bixin aqoontan uu soo qaatay halkeebu ka bartay weeyaan su'aasha isweydiinta mudan jawaabtuna waxa weeyaan isaga qofku isbaray maanta oo laga joogo sanadkii course-ka la soo bandhigay 5 sanadood dunida wuxuu ka noqday course-kaasi mid ka mid ah course-yada ardaydu ay ugu qaadashada badan yihiin aadna loo xiiseeyo waliba 5 sano kadib cilmigii uu horumaray Coursera beriga waxa ay soo bandhigeen 5 xirfadood oo kaliya oo ay ku sheegeen waliba si weyn ardayda u caawisay laakiin maadaama maanta daraasado badan iyo cilmi baarisyo badan ay ka dambeeyeen waqti badan ay ka soo sokayso wuxuu maanta cilmigii marayaa in ardaygu qaabka wax isku bari kara la gaarsiiyay 20 xirfadood waa course-ka kaliyaata ee qofku uu ku baran karo 20 xirfadood oo iswata marka imika magacaan leeyahay loo bixiyay waxa la yiraahdaa hooyada xirfadaha in badan baad maqashay xirfad baro laakiin hooyada xirfadaha lafteedu waa qaabka adigu aad self learning aad u sameyn lahayd sanad ka hor ayaan isku dayay inaan ku baaro af Soomaali bal inuu jiro qof tababarka noocaas oo kala ah inoo soo fudeydiyay oo luqadda Soomaaliga maadaama ardayda adduunka oo dhan wax viral ka yahay aad loo wada yaqaano waxa aan markaan baaritaan ku sameeyay aan arkay wali wax Soomaaliya oo muxuu ahaay tababar ku qabtay inaanan arag intii anigu aan baaray taas markaa waxay ku khasabtay maadaama oo waagana aan hore u qaatay in badanna aan baaritaan ku sameeyay in aan u qalab qaato inaan cilmigii soo ururiyo luqadihii kala duwanaa aan ka soo ururiyo aan af Soomaali isku keeno intaasina waxa iga qaadatay muddo sanada inaan 20 xirfadoodba aan keeno maanta ilaahay mahadi waxaynu soo gaarnay course-kii self learning ama learn how to learn oo inoo diyaara waxa aan rajaynayaa insha Allah in dhowr magaalo oo kala duwan oo muxuu ahaay aynu ardayda uga faa'iideyno marka dambe aynu isku dayno inaynu qaab online aynu ardayda aynu u siin karno waxaan sameyn doonaa insha Allah mar walba magaalo walbana wax ku tababari doonaa 100 arday course-ku wuxuu soconayaa 2 maalmood baan ugu talagalay tababarku 2 maalmood marka la isku geeyo macal assignment-nadu waa 8 saacadood 4 saacadood waxaad wax ku dhiganaysaa class-ka 4 saacadoodna assignment lagu diray ayaad guriga kaga soo shaqeynaysaa marka course-ku kaliya tamaaha on theory tababar marka la yiraahdo waxa kuugu jira 7 assignment 7 quiz baa ku jira oo adiga lagu tijaabinayo fahankaaga sidoo kale waxa ku jira 5 assignment oo waaweyn oo loo baahan yahay qalinka inaad u qaadato adiguna aad fikirkaaga aad ku cabirto insha Allah waxa aan ku kalsoonahay xirfadaha imika maanta aynu sheegi doono in badan oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ma aha xataa iska daa inay garanayaan marka aynu sheegno in badan oo kamid ah xataa magacooga inaanayna maqal insha Allah waxa rajaynayaa inuu noqdo kii sida Coursera oo kale wax badan laga faa'iido dhalinyaradeenna iyo mutacallimiinteennana wax badan u kordhiya dariiq badanna u soo kooba hadii ilaahay na gaarsiiyo waxaynu ka bilaabaynaa magaalada Boorama toddobaadkan aynu ku jirno waxaynu qaban doonaa 2 habeen 11 bisha maalinka Khamiista habeenku Jimcaha soo galay bacda maghribka iyo 12 bisha maalinka Jimcaha tahay habeenku Sabtida soo galay ayuu tababarku inoo qabsoomi doonaa waxaananu ku qaban doonaa xarunta jaamacadda Alfa Campus koobaad magaalada Boorama hoolka tigidhkii lagu galayay training-kuna isagoo free ayuu ku yaalaa xafiiska isdiiwaangelinta jaamacadda 100 arday ugu soo horeeya aynu siin doonaa kana faa'iideysan doona insha Allah waxa aan rajaynayaa maaha kaliya taun inaad muxuu ahaayay aad cilmi ahaan ka faa'iidi doonto
laakiin waxaan idin rajaynaya inaad khibrad badanna halka aad ka dhaxli doonto maadaama aynu soo ururinay khibrado gaaraya 100 sano 100kii sano ugu dambeeyay khibradihii iyo muxuu ahaayay cilmigii iyo daraasadihii la sameeyay waayo waxa inoogu jira kooraska 5 daraasadood oo adduunyada muxuu ahaay daafaha caalamka kala duwan laga sameeyay marka waxaan rajaynayaa insha Allah kaliya toon maaha cilmiye in aydan khibrad badanna aad kala tagi doontaan aad baa u mahadsantiin